السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بالشوينت الصوماليات مركورة وايد السلامي إن مرلباتك وهذا محمد يدان أو كم قعدير هذا لما أنا عندها لا إن ما أنت تاريخ تهاي لبكون يلبي لباتن بشي شناد أفرلاتين كذي مع النماذج الثلاثة waxaan ku suganay magaalada Hargeysa khaasatan waxaan ku suganahay xaafadda Cuqubo gaar ahaan Amal Ibrahim iyo xaafadooda waxaan u nimi aniga maaragtay sawjkayga ilaa qarasiye Amal oo ah gabadh maaragtay baaralaysa oo aragina naafaka ah xaaladeedana ay tahay xaaladaad arkaysaan Amal ma markii koowaad markii labaad markii saddexaad toona markii intan maaragtay soo booqday waxaan Amal u keenay agabkan kala duwan aad arkaysaan haday noqoto kartoon baasta kartoon maaragtay makarona daasad caana daasad sharaaba shan leh saliida saddex boqos oo xafaayadii loo xidhayay maadaama qofka maaragtay marxaladda ku jirta ay tahay alaamsa shan maaragtay qorso saamunti dharka ah haaf saamunti dharka ah haaf saamunti jirka aan dhaho shan leh saliida iyo haaf timira $100 lacag ah oo walaal muxsina oo dalka Ireland jooga oo soo baxsaday ayaaban Amal ugu soo adeegay $5 aan gacanta ku haya insha Allah biidmillaah karim soo hadhay $99 intaas ay noqdeen insha Allah waxaan ku wareejin doonaa agabkan maaragtay raashinkan aan wadno iyo maaragtay $5 baaqiga ahaaba Amal aan dhaho wiilkii ay dhashay oo maaragtay Amal ay habartay Shaafici baan ku wareejin wala Shaafici iga gudoon $5 oo shantii baaqiga ahayd $100 baa ka soo hadhay insha Allah wada iga gudoomi alaabtaasna $99 ee kala soo siinay marka insha Allah waa odogtiino in badan baan idin soo noqnoqonay Amal waan ka warhaynaa xaaladeeda waan ka warhayn doonaa insha Allah biidmillaah karim insha Allah wiilkii soo baxsaday iyo inta kale sadaqada jacayl waxaan leenahay jazaakum Allahu khayran wa khayran jazaa oo hooda lamaanaha indhahala oo idin leh ku soo dhawaada jananka hooda lamaanaha indhahala insha Allah xagga waxaan maaragtay aan ka ogeysiinayaa dadkii sadaqada la soo bixi jireen awalba maaragtay sadaqadooda maaragtay u gudbin jiray isla markaana aan u guddoonsiin jiray dadka jilicsan ee baahiyaha gaarka qaba taagta daran leh in maaragtay aan sidoo aan magacayga hooda lamaanaha indhahala ugu guddoonsiinaya aan insha Allah biidmillaah karim hawshaydii dadkii aan ka sii wadi doono dhammaan asxaabta